doorashooyinka Somaliland ayaa maanta shaaciyay inay soo dhamaatay wajigii labaad ee diiwaangelinta doorashooyinka Somaliland oo bariyahanba ka socotay gobolka Sanaag isla markaasina la galay wajigii saddexaad ee ugu dambeeyay gobolka Sanaag iyadoo ayaamaha soo socdana laga bilaabi doono diiwaangelinta codbixiyayaasha Somaliland gobolka Sool oo noqonaya gobolkii ugu dambeeyay ee la iska diiwaangeliyo 6 gobol ee Somaliland waxaana munaasabaddan lagu qabtay hoolka jaamacadda Sanaag waxaanu goobjoogayaal ka ahaa gudoomiyaha komishanka ee gobolka Sanaag gudoomiyaha degmada Ceergaabo afayeenka komishanka Somaliland iyo sidoo kale komishanar Cabdiraxmaan Cismaan ugu horreeyna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha komishanka degmada Ceergaabo iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Sanaag ee komishanka Somaliland waxa maanta inoo soo gabagaboobay feeskii ugu dambeeyay diiwaangelinta degmada Ceergaabo waxa ku haray oo kaliya taa imika degmada 5 goobood laba residual wareegaya dibadda saddex baan leeyahay saddex sorry meesha la Yube Fiqi Fuliye iyo Yufle magaalada gudaheedana waxa ku haray laba goobood oo ah boostaha iyo kulmiye komishanka doorashooyinka oo ay hadda nagala joogaan afayeenka komishanka mudane Saciid Cali Muuse iyo komishanar Cabdiraxmaan Cismaan Aadan iyaguna in mudaaba nala joogay imikana nala joogi doona ilaa iyo xiritaanka aad baan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ay nala shaqeynayeen markii horena guddidu 5 baan nala joogtay oo uu ka mid ahaa gudoomiyihii iyo komishanar Cabdi Fataax iyo komishanar Maxamed Jaama iyagoo ku jira diyaar garowgii gobolka kale ee Sool aad baan ugu mahadnaqaynaa guddidu sida fiican ay hawsha ay noo waday reer Sanaagna waxaan leeyahay hawsha xil weyn aan iska saaran waxaan weynaha gobolka ugu baaqaynaa intii aan isdiiwaangelin inay ka faa'iideystaan fursaddan 14 cisho oo ay muujiyaan tirada gobolka joogta ee xaq u leh inay codeeyaan oo lagu xisaabtamo si markay ugu yaraato xisbiyadu ugu soo tartamaan oo ay u muujiyaan muhiimadda ay leeyahay gobolka Sanaag oo marka ay ugu darsadaan istiraatiijiyadooda qorshaha soo socda horumarka gobolka Sanaag uu ka helayo miisaaniyadda dalka iyo wixii dibadda inooga yimaado gabagabadina waxaa halkaasi ka hadlay afayeenka komishanka doorashooyinka Somaliland Saciid Cali Muuse oo bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay ka faa'iideystaan waqtiga kooban ee u haray tan sheegayo laha dadku aad ha uga faa'iideysteen wuxuu qofku waliba u suurtagelaysaa 14 casho ee dambe iyo waliba week kamid ah toddobaadkiina dhaafay in qofku meeshu doono iska diiwaan gelin karo degmada uu doono degmada uu joogo meesha uu doonaan uu ka marka hadhowto ka codeyn karo waa fursad qaali ah taasina dadka yay seegin qofkii dib u dhiganayo imikay fursadii taagan tahay Barkhad Maxamuud Geedi telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaalada Ceergaabo.